afarta malag ee ugu waaweyn uguna caansan mid ka mid ah waa malagga nafta qaada ee malakul mawdka. Malaggani waxa uu u xilsaaran yahay in dadka nafta uu ka qaado. Dadka badankooduna aad ay uga baqaan malaggani in ay maqlaan ama in qisadiisu ay dhegaystaan. Malaggani waxa uu leeyahay qisooyin cajiib ah markuu dadka nafta uu ka qaadayo. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa la wariyaa in malaggani nafta qaada markii uu u yimid inuu dharbaaxi malagga ishiisa bannaanka in ay ku soo dhacdo sabab u noqotay. Ilaa dadka qaarkii ay dhahaan malagga nafta qaada hal il ayaa ka maqan, si kastoo daciif ay u tahay. Si aan u bilowno muuqaalka iyo qisada malaggani markuu dadka nafta uu ka qaadayo, haddii aad ka heshaadna wax ka faa'iiday, leegsaar mahadsanid. Noole walba waxa uu leeyahay mas'uuliyad gaar ah, bani aadamkuna waxa uu ku qasban yahay in uu fuliyo amarada diinta ee lagu waajibiyey. Malagguna waxaa waajib ku ah inuu qabto shaqada lagu waajibiyey. Malakul mawdku waxaa la sheegaa markii uu Alle shaqadani nafka qaadista uu u dhiibay, malaggu waxa uu Alle ku yiri, Ilaahayow, aniga oo gudanaya waajibka iyo xilka aad i fartay, haddii dadku ay igula coloobaan magaceyguna ay nacaan shaqada aan qabanay ee nafka qaadista darteedu, maxaan sameeyaa? Alle waxa uu malagga ku yiri, waxaan iyaga ku imtixaani doonaa musiibooyin kala duwan, iyagoo aanan ku xusuusan ayaad nafta ka qaadi kartaa. Sida dhabtaana maanta ma jiro qof marka uu dhimanayo xusuusta malaggani. Maalin walbana waxaa la maqlaa dhimasho. Dadka qaarkood waxa ay ku dhintaan shilal iyo musiibooyin kale, sidaasina dadku waxay ku hilmaamaan malagga nafta ka qaadaya. Habeenkii Micraajka ee Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kor loo qaaday, waxyaabaha uu arkay ee la sheegay waxaa ka mid ah malakul mawdka. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo malakul mawdkuna waxaa dhex martay sheeko aad u yar. Markii ay is salaameen kadib, Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu malakul mawdku weydiiyey, halkani adiga oo jooga sidee ayaad dadka nafafkooda uga soo qaadaa? Malakul mawdku waxa uu ku jawaabay, Alle markuu xilkan i siiyey waxa uu sidoo kale i siiyey kumanaan malag ah ee aan amro. Qofka marka aan doonayay in aan nafta aan ka soo qaadana, waxaan u soo diraa qofkaasi malagyo aad u badan. Malagyaduna qofka hareerihiisu ayay ku soo wareegsadaan iyaga oo dhinac walba koobaya. Qofkuna hadba maqaamka uu ku sugan yahay, haddii muslim uu yahay ama haddii gaal uu yahay, waxa ay malaa'iguhu ku qaabilaan nooca qofka uu yahay. Dhammaan neerfaha iyo xubnaha jinka ayay ruuxda malaa'iguhu ka soo saaraan iyaga oo ruuxda xagga cirka u soo qaadaya. Jinka qofkuna halkiisa ay uga soo tagaan. Haddii qofku uu yahay qof gaal ah, nafta waxaa looga saaraa si naxariis aan lahayn, iyaga oo malaa'iguhu dhinac walba ay ka garaacayaan. Ruuxduna marka ay jinka ka soo saaraan, malaa'igaha kale unka ruuxda qofkaasi gaalka ah aad ay u dhibsadaan, waxa ayna soo xirtaan albaabada samada. Intaa kadib waxa uu Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu weydiiyey malakul mawdka, haddaba adiga oo halkani jooga, sidee ayaad ku garataa qofka in waqtigiisu uu dhammaaday ama in kale? Malakul mawdku waxa uu ku yiri, qof walba waxa uu samada ku leeyahay laba albaab. Albaab waxaa ka soo dega arsaaqada qofka, albaabka kalena waxaa sare uga soo kaca camalada wanaagsan ee qofka uu sameeyo. Qofkuna waxa uu samada ku leeyahay geed uu magaciisu ku qoran yahay, sida caleenta geedka oo kale. Qofka markii la gaaro xilliga waqtigiisu uu dhammaaday ama uu soo dhow yahay, caleentu waxa ay bilowdaa in ay qalasho. Ugu dambeynna caleenta marka ay soo dhacdo, qofka xaaladda uu ku sugan yahay baa ku sugnaadee, nafta ayaa laga soo qaadaa. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markuu intaasi dhegaystay, waxa uu malagga ku yiri, ma arki karaa heebada muuqaalkaaga? Waxa uu malakul mawdku intaa kadib Nabigu uu ku arkay suuradiisa dhabta oo si naxdin leh oo aad looga baqa ah. Adduunka oo dhan marka malagga loo eego, waxa uu ku qaban karaa gacmihiisa, balse Alle ayaa malaa'iguhu awood u siiyey in ay suuradda iska bedeli karaan. Marka ay qof bashar ah ay la kulmayaan ama ay qaabilayaan, suuradooda dhabta kuma ay qaabilaan, waayo suuradooda dhabta bani aadamku awood uma lahan inuu adkaysto ama uu fiiriyo. Qisooyinka kale ee malakul mawdka laga soo wariyey mid ka mid ah waa qisada Nabi Idriis. Nabi Idriis waxa uu ahaa sida la sheegay qof aad u hadal macaan, xitaa sheekooyinkiisu marka dadka laga soo tago waxaa jeclaa malaa'igaha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la sheegaa Nabi Idriis inuu u yimid malakul mawdka. Nabi Idriisna waxa uu ku yiri, waxaan wataa hal codsi, iga qaad nafta kadibna naftayga dib u soo celi. Malaggii waxa uu ku yiri, waa inaan Alle weydiiyaa.
waxa uuna alla aqbalay dalabkii nebi idriis. kadibna waxaa laga qaaday naftii. waxa uuna sidoo kale nebi idriis uu sii dalbaday inta aanan nafta lagu soo celin ka hor inuu arko jannada iyo jahannamada gudahooda. malagii mar kale alle waxa uu u weydiiyey codsigani uu wata nebi idriis. codsigiina alle waa uu aqbalay. waxayna halkaa joogaan ilaa xoogaha. ugu dambayn markii la gaaray waqtiga, malagii ayaa waxa uu ku yidhi nebi idriis, waxaa la gaaray waqtigii jannada aad ka bixi lahayd. nebi idriis waxa uu diiday in jannada uu ka baxo. malagii alle waxa uu weydiiyey, eebow, addoonkani ma uu doonayo in jannada uu ka soo baxo, maxaan sameeyaa? nebi idriis waxa uu yidhi, eebow, iga aqbal in halkani aan sii joogo. sida dhabta ahna nafta waa la iga qaaday, waana dhadhamiyey geerida. alle waxa uu ka aqbalay codsigii nebi idriis. sidaasina nebi idriis waxa uu ka mid noqday dadka nool ee iyaga oo waqtiga dhimashadoodu aan la gaarin nasiib u yeeshay in xagga sare ay aadaan. qisooyinka kale ee malakulmoodka laga soo wariyey aad ay u badan yihiin. mid ka mid ahna waa dharbaaxidii nebi muuse calayhi salaam uu ku dhuftay malakulmowdka. xadiis saxiixulbukhaariga ku yaala waxa uu nebiga nabadgelya naxariistiisa ahaatee uu leeyahay, malakulmowd ayaa loo soo diray in ruuxda uu ka qaado nebi muuse calayhi salaam. balse nebi muuse waxa uu ku dhuftay malaga dharbaaxi aad u weyn ilaa malaga ishiisu ay soo dhacdo. malagii waxaa la sheegay dhacdadani markii uu la kulmay waxa uu alle ku yidhi, eebow, addoonkani wuxuu igu dhuftay dharbaaxi, mana uu doonay in ruuxda aan ka qaado. alle ayaa isla markiiba malaga indhihiisa u soo celiyey. sida dhabta ah ee la sheegay, nebi muuse malaga waxa uu ku arkay heybad suuradda bani'aadamka oo kale. culimada qaar waxa ay sheegaan in qisadani laga faa'iidayo martabada sare ee nebi muuse alle xaggiisa uu ku leeyahay. qaar ka mid ah culimaduna waxa ay sheegaan in qisadani ay ahayd mid imtixaan ah. si kastoo ay ahaatee, qof walba wuxuu dhadhamin doonaa geerida. malaga u xilsaaran hawshanina kama uu tegi doono qof nuuxsanaya. waxaana jira qisooyin badan ee malakulmoodka ku saabsan sida uu dadkii hore naftu uga qaaday laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam. Thank you.